بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا أم الزبير سلمان channel حدا يقعد سبتي سبسكرايب قبل كان فرص حاوي سو دوادا ما تحنو وذا برنامج كيني أها مقاعدة قبلها إسلامك إن شاء الله خير سو دوادا مقاعينو هوري ومجنا ومقاعات وقروح بدن أصحابه إن بدن سومالي ملبحان لكن هالكو ملقواينايو مقاعين حيقة إن شاء الله خير وتسمنا ومقع قروح بدن سومال هدانهن والبحنا إن شاء الله خير تسمى والبحنا سومال هدي هاي إن شاء الله خير سودوا الصومالية أنت مقعيداني كشيدان تهاي عين حيقة أصحابي وليها واي ليها إن بدن سومالي ملبحان عربتها آت ولبحضو إن شاء الله خير لكن هذا سومالي ديني مقعي عصري بحسنوين مقعيدان ومقعي نقهري إن شاء الله خير مقعين حيقة والسحرة سحرة سيدو كله آد عربتها أو بحثته سومالي ويكو يرتهي مقع السحرة إن شاء الله خير مقعين حيقة والشفاء ما أنت مقعيد آذا أسوب بدي صحابي سي أو حان روا أو هي أتوقع دركتان مادام وقت بدن أنيقا مخناي مقعين حيقة وحلية واي حلينا سومالي ملبحضة انت بدن وحا على بحان عربتها على بحان مقعيدا ومقعيد دمانتين نقوين magacii xiga waa zuura maasha allah halkoo soomaali waa laga helaa haddii aad raadiso magac qurux badan waaye zuura magaceena xiga waa axsa waaye axsana sidoo kale soomaali hal waa laga helaa insha allah khayr dhammaan waa magacyo aad u qurux badan qof alla qofkii danaynayno waa ka faa'iideysan karaa insha allah magaceena xiga waa nasha waaye نشر هراء سوقلي هذا نشر واي نشرنا مقع قروح بدن وأصحابه سومالين ويكوير تهاي مقعين حجوا أمهان وعلى بحنا دي أنا سومالي إن بدن أنا بأركي أنا أمهان لدهاي سومالي مركز جوجي أنت واقو أركي مركز ما شاء الله مقعات لو جعلي هواي عاش نسيدو كله عاش سومالي آدي ولبحان ومقعيدي أو سومالي أنت بدن مقعيد وكل بدن هنا مقعيد وجو بدن يبقوا جرتا عاشة وأنا مقع قروح بدن سيدو كله ناقة واي ناقة هل صومالي ولا هلا مقع عربيت واي دمان توضن مقع عربيت واي مركان كلها مقع عربيت واي يعني وحق بدن إني بحثان وعربتا مقع عن حيقوا صفحة واي صفحنا سيدو كله عربت آذي وبحثتا صومالي ويكوير تهي محالة دا مقع عن دمان توضن وحيكو جرا قرآن كريمكا saas darteeda inta badan waxaa baxsata carabta latrana waxa waaye magacyada aadka noogu yar waa Soomaali hadii aan nahay insha Allah khayr abaayada isoo weydiisay magac la ka bilaabto abaayada isoo weydiisay magac ta ka bilaabto dhamaantiina ka wada faa'iideysta iyo inta kale be dahrana sidoo kale oo magac qurux badan waaye dahraan aan baxsanaa hadii aan nahay Soomaali kan laakiin dahra waaye sidoo kale faatan waatan dadkan inta aad u baxsadaan oo carabta sidoo kale carabta kalena way baxsataa insha Allah khayr soo dhawaada Soomaaliya ka faa'iideysta maanta magacyadeena ku dhawaad 30 magac ay u dhowdahay insha Allah khayr magaceena xiga waa masja waaye masjana Soomaali way ku yartahay in badan ma baxsato hal dhif waa laga helaa laakiin magaca masja waa magac qurux badan dadka ma adan raadinayo way ka faa'iideysan karaan liisa sidoo kale marka maqasho liisa waxa kugu soo dhacay magaaladii cadaankii jariirtii laakiin liisa magac quraanka kariimka ku jiro waaye carabtan way baxsadaan khaasatan kuweytka u badan insha Allah khayr magaceena xiga waa tashtana sidoo kale magac way baxsadaan carabta waa magac qurux badan qof alla qofkii jecelna waa baxsan karaa wax carab kaligiis u go'an male waa dadka dhan oo ka dhaxeeya magaca insha Allah khayr magaceena xiga waa tahza waaye tahzan waa magac qurux badan Soomaalina way nagu yartahay magac tahza ma maqlin aniga laakiin hadda kadib insha Allah way baxsan doonaan magac walbo oo ya abay waa sheekada kowdaha insha Allah khayr mina Soomaali waa baxsanaa hadii aan nahay inkastoo noogu yar yahay magacyada yar oo ka mid yahay laakiin mina waa baxsanaa insha Allah khayr waa magaca carabtan aad u baxsato insha Allah khayr jihaan waa baxsanaa laakiin jihara waay kan jihara waa magacyada aadka ugu yar Soomaaliya aan baxsanin ma kasaayaan intooda badan laakiin labadii qof carabta ku dhaqantay way kasaayaan insha Allah khayr magac walbo carab Soomaali way ay carabta aad u baxsadaan Soomaalida xaga joogan laakiin way ku yartahay wayna baxsadaan
sidoo kale midra wuxuu ka mid yahay faa'iido waayo wax walba oo markii oo aad maqasho waxaa laga baxsadaa wixii faa'iido ku ah wixii kalena waa la iska dhaafaa insha Allah khayr soo dhawaada meel walba joogtiin sidaan hore u sheegay barnaamijkeeni maanta wuxuu ku saabsan yahay daryeelka hooyada uurka leh hooyada uurka leh sidee loo daryeelaa waa su'aal hooyada uurka leh waxaa loo daryeelaa siyaabo badan oo qofka bini'aadamka qofka kula nool ama qofka aad la nooshahay dhammaan waxaa loo baahan yahay inay ka warhayaan hooyada uurka leh marka ugu horeyso maamada ama gabadha uurka ay qaado waxaa loo baahan yahay qofka xaaladiisii hore waxa uu galaa isbedelkaasoo ah qofkan waxaa korkiisa ku beermaayo ruux kale marka waxaa loo baahan yahay horta in wax walbo oo qoftaas ay sameynayso ama ay nacayso ama ay jeclaynayso wixii ay nacaysan in laga fogeeyo wixii ay jeclaanaysa in loo soo dhaweeyo ilaa iyo waqtiga ay ku jirto walaaca hore ee bilooyinka ugu horeeya ee uurka markii oo ay ka baxdo walaaca waxay u baahan tahay daryeel kale isla daryeelkii oo hore maadaama walaaco inta badan uu yahay bisha ugu horeyso iyo bisha afaraad ama bisha shanaad hadii ay daahdo dadka qaar waxaa jira kasokaba inuu walaaci ka dhamaado marka waxaa loo baahan yahay gabdhaha qaar waxaa ilaahay u kaso inay mantag joogto ah qaarkood falooboyina lagu taagaa qaarkood cuntaba ma cunaan oo biyo waxaan ahayn inta badan ma cawaan hadee cabitaan cawaanba waayo waxay afka saaraan way iska mantagayaan waxay afka saaraan way mantagayaan qaarkood waxay naqanayaan fiiladii oo kale naqanayaan marka maxaa lagaaga baahan yahay adiga guriga la nool adigay kula nooshahay waxaa loo baahan yahay inaad u gargaartid waayo qofka wax walba soo uraa qofna wax walba jeclaana wixii aad jeceshahay ama wixii jeceshahay hadii loo keeno qofkaas oo ku farxaayo oo uu sameyn karta hadii aad u heli karto hadii aadan u heli karin wixii ay nacban tahay isku day inaad ka fogeysid taasi horta taas waaye tan kale oo loo baahan yahay hooyada uurka leh oo lagu daryeeli karo ama loogu gargaarayo waxay tahay sida hore u sheegay qofta markay uur yeelato jir ahaan iyo maskax ahaanba qof fadhiya ma ahan waa qof ayada dhan wada qasan oo maskax ahaantana ay ka qasan tahay jirkeedina oo yahay jir oo yacni xaalad kale oo galooyo marka waxaa loo baahan yahay caawinaad xagga guriga haddii ahaa lahayd xagga nadaafadda haddii ahaa lahayd xagga cunto karinta haddii ahaa lahayd maxaa la dhahaa xagga ayada nafs ahaanteeda u gargaaridda waxay u baahan tahay inaad oo jeceshahay aad u keento taas waxay ka mid tahay
gargaaridda hooyada uurka leh. sidoo kale waxaa loo baahan yahay in qofta markay qofka bini'aadinka ah inuu u isticmaalo toonka haddii uu gurigaaga ku yaalo. haddii uu ku yaalana hadda kadib aad maqasho codkayga waxaan rajaynaynaa soo dhigan doonto waayo daawo oo waxa waaye oo aad iyo aad u fiican haddana qiimihiisana aad u hooseyso aadan ogeyn. insha allah kheyr ku dadaala mar walbo inaad toonka aad joogtayso. haddii aad caanaha aad ku karkarsato hataa faa'iido kuu leeyahay. bahalkaas caloosha ku jiro waa ka dhimanaa. sidoo kale infectionka caloosha naftirkeeda ku dhaco inta badan ilmaha markay yaryar yihiin caloosha waxaa ka gala infectionkaas hataa waa ka yaraanaa. marka ku dadaala toonka. sidoo kale qodobka shanaad wuxuu yahay oo toonka faa'iido uu leeyahay. toonka wuxuu faa'iido u leeyahay dadka dhiiga ka xinjiroowa. sidoo kale dadka dhiigana ka qaboowa. labadaas qodob waa isku qabanaa. dadka dhiiga ka qaboowa asxaabe in badan waa ku soo celceliye dadaan fahansaneen. dhiiga waxaa jiro dad qaar oo dhiigooda qaboowa sida cayaanka oo kale. dhiiga waa qaboowa markaan ku dhahay qofka markoo dhinto dhiigiisa waa qaboowa. laakiin dadka qaara waxaa jira marmarka qaar ay dhiigooda qaboobo oo maskaxda bes ka nool laakiin jirkana qaboob ah. dadkaas waxaa ka maqan jirkiisa fitamiina ka maqan aba ugu badnaatee. laakiin haddii aad isticmaasho toonka wuxuu kaa caawinaya inuu dhiigaaga kuleel oo noqdo. waayo toonka xoogoo dhexda waxaa ku jiro miro yariisa ku jiro. marka toonka aa kala gooso waa fahmaysaa waa arkaysaa wax kale oo toon camal ah ku jiro oo laakiin oo yariis ah wuxuu leeyahay kuleel. marka kuleelkaas haddii aad joogtayso inaad isticmaasho toonka wuxuu ku caawinaa ama kaa caawina inuu dhiigaaga oo kulaado. marka oo dhiigaaga oo kulaadana waa sida la rabay. saas darteeda dadka dhiiga qaboobo saasaan ka wada asxaabe ku dadaala inaad toonka aad isticmaashaan aad badsataan. toonka faa'iido kuu leeyahay. ha ku xisaabtamin inuu afkaaga oo kusoo uro. dhib male afkaaga hadduu kusoo uro waa cadaysanaysaa. kuley khamro ma soo cabin adu wax lee soo cunta maho wax oo haddana xalaal ah soo cunta oo adigana daawo ku ah. afka waa iska cadaynaysaa dhib male haka wahsanin inaa cadaysatid. qodobkaas waxaa la socdo in dadka dhiiga ka xinjiroowa saa hore u sheegay dhiiga waa ku leeyahay toonka haddii oo dhiigaaga uu qaboobo. sidoo kale markii oo dhiiga oo xinjiro oo kaa noqdo dadka qaara waxaa jiro crostor markoo ku dhaco in dhiigiisa oo noqdo xinjiro. sidoo kale dadka qaara waxaa jira aan soconin oo dhiigoodii oo xinjiroobo. waxaa u fiican in mar walbo ay cunaan toonka ay joogteeyaan cunista toonka. maalintii haddii aad 3 mar le aa cuntaan oo min hal xaba le hadaa cuntaan faa'iido kuu leeyahay. marka toonka waa kala baxaa horta. toonka hadda aa ujeedin toon shiinaysaa la dhahaa. toonka yaryarna wuxuu u fiican yahay dhiig karka. marka